halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa muujadaha gaagaaban FM-da magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa maalin Arbaca ah 22 Abriil Afrikada Bari waxay haatan tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah barnaamijka dunida iyo maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxa kamid ah robab xogan oo Djibouti dad ku laayay qaarna ay ku barakaceen haddaba sidee ayay arrintaasi wax yeeleynaysaa dadaaladii lagula dagaalamay cudurka COVID-19 nabcadda ilaahay wadada maaragtay qof kastaba ka itaaroon bay ahayd uu gaaray roobku meeshaas shaqadana uu yaray hakiyay laakiin imika waa wax kastaba sidiisaba ku soo noqdo waa la hagaajiyay dawladda Soomaaliya oo go'aan ka soo saartay qaabka salaada lagu tukanayo masaajidda boqortooyada Sacuudigana waxay wax ka bedeshay qaabka loo tukanayo salaadaha taraawiixda sabab la xiriira cudurka coronavirus 23 ragcadood baa xaramka lagu tukan jiray tii ayada ahayd baa isbedel uu ku yimid waxaana loo bedelay 13 ragcadood sidoo kale waxaa la reebay in labada xaram sanadadii hore lagu i'tikaafi jiray oo i'tikaaf ma jiri doona waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan xuquuqa reer Barawa ayuu fargeliyay radio Brave ideyaal oo afbaraawa ayaa ka soo baxi jiray wuxuu afkaas ma la sheegi karo afkaasna mamnuuc ayaa ka ahay radio Brave waa qaar ka mid ah dadka reer Barawe oo ka cabanaya go'aan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo si wada jir ay u soo saareen Xasan Sheekh Cumar iyo Samiir Cabdullaahi Jaamac anigoo Xasan Cali Geela ayaan halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha awoodda la idmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxaa diyaar u ah Cabdifataax Ibraahim Cagayare oo warka si toos ah ka soo tabin doona gurigiisa Cabdifataax mahadsanid Xasan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in cudurka COVID-19 uu saameyn culus ku reebay dhaqaalaha dalkiisa Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in ay joogsadeen lacagihii laga soo dhigi jiray xawaaladaha ee dibadaha laga soo dhigi jiray sababtoo ah Soomaali badan oo ku nool qurbaha ayaa waxa ay ku soo dhaceen buu yiri shaqo la'aan fayraska wadi waxa uu intaasi ku daray in 40% uu hoos u dhacay dakhligii soo gali jiray dawladda sababtoo ah waxaan suuragelayn buu yiri in la soo ururiyo canshuurihii Mr. Beyle ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in arrintaasi daraadeed ay dadka qaar wajihi doonaan xaalad adag oo nololeed oo macluul gaarsiisan in ka badan 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa sanad walba Soomaaliya xawaaladaha loo soo dhigaa lacagtaas oo ay ku tiirsan yihiin qoysas badan wasiirka maaliyaddana waxa uu sheegayaa in $40 ee dalka taal mid ka mid ah ay xawaaladaha la soo dhigay bangiga adduunka ayaa waxa uu isna ka digayaa in cudurka coronavirus uu sababayo hoos u dhac weyn oo ku yimid lacagihii ay shaqaalaha muhaajiriinta u diri jireen qoysaskooda ku sugan dalkooda hooyo bangiga ayaa sheegay in lacagtaas xawaaladaha la dhigo ay sanadkan hoos u dhici karaan 20% ama in ka badan 100 bilyan oo dollar qaramada midoobeyna waxa ay qiyaasaysaa in ku dhawaad 800 oo milyan oo qof oo ku nool daafaha dunida ay ku tiirsan yihiin lacag ay soo diraan qaraabadooda dibadaha u tagay si ay u soo xamaashaan bangiga adduunka ayaa waxa uu ka digayaa hoos u dhaca lacagahaasi lagu soo diro xawaaladaha ay suuragal tahay inay sii huriyaan sare u kac weyn oo dhinaca saboolnimada oo soo gaarta dalalka soo koraya sidoo kalena ay waxyeello soo gaarto galaangalkii ay dadkaasi u lahaayeen daryeelka caafimaad dawladda Zimbabwe waxa ay sheegaysaa in ganacsatada tafaariiqleyda ay ogolaadeen in ay salka u dhigaan qiimaha alaabaha asaasiga si ay gacan uga geystaan hoos u dhigista saameynta dhaqaalaha soo gaartay dalkaas ee ka soo gaartay cudurkan safmarka awadi qiimaha raashinka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa uu aad sare u kacay iyadoo rootigana uu sare u kacay 50% dawladda waxay ku dhawaad 1 milyan oo qoys oo kuwa aadka u taagta darana waxa ay bishiiba siisaa lacag u dhiganta 80 senti oo dollarka Mareykanka sicir bararka Zimbabwe ayaa waxa uu marayaa ku dhawaad 700% waxaase hore u guul daraystay isku dayo lagu doonayay in qiimaha salka loogu dhigo barasaabyada 19 gobol oo ku yaal waqooyiga waddanka Nigeria ayaa waxa ay albaabada isugu dhufteen dhammaan dugsiyadii Quraanka Kariimka tallaabadaas oo ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan faafitaanka cudurka coronavirus
waxaa la qiyaasayaa in 9 milyan oo caruur ah oo dugsiyadaas degan jiray guryahooda loo kala diri doono. waalidiin badan oo muslimiin oo ku sugan gudaha waddanka Nigeria ayaa caruurtooda oo qaarkood da'doodu aad u yar tahay oo ay jiraan 60 sannadood waxa ay u diraan malcamadaha qur-aanka lagu barto oo ku yaal magaalooyin ama tuulooyin kale si ay qur-aanka u soo xifdiyaan. caadiyan caruurtaas waxa ay ku nool yihiin goobo ciriiri ah oo qaarkood ayaa waddooyinka ka toogsada marka aanay cashar lahayn. xadidaadaha lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa laga hirgeliyey 3 goobood oo Nigeria sida caasimadda Abuja, magaalada Lagos iyo gobolada Ogun. walow jiraan xadidaado la xiriira cudurka coronavirus oo lagu soo rogay magaalada Moscow ayaa haddana shuuciyiinta Ruushka waxa ay isugu soo baxeen si ay u dhigaan ubax dhismaha Lenin ee ku yaal fagaaraha cas si ay u xusaan 150 sano guuradii ka soo wareegatay markii uu dhashay hogaamiyihii waddankaasi maamuli jiray ee lagu magacaabi jiray Vladimir Lenin, kaas oo meydkiisa dadku ay halkaasi ku booqdaan. xisbiga shuuciga ayaa waxa uu sheegay in xafladda loo qabtay qaab waafaqsan xadidaadaha la dhigay ee lagu doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. waxaa la arkayay 10 qof oo calamo lulaya oo xafladdaas ka qayb qaadanaya. hase yeeshee wariyaha BBC-da uga soo warantay magaalada Moscow ayaa waxay sheegaysaa in waqti badan aanay qaadanba markii dadkaasi xafladdaasi ka qayb qaadanayay ay bilaabeen inay jabiyaan amarkii ahaa in 2 mitir la kala fogaado. waxa ayse sheegtay in aanay caddayn sababta shuuciyiinta loogu ogolaaday in ay qabsadaan isu soo bax dad badan ay isugu imanayaan, taas oo ah mid sharciga hareer marsan. ugu dambeynna baarlamaanka Spain ayaa waxa uu ku doodayaa codsi uga yimid ra'iisul wasaaraha waddankaas Pedro Sanchez, kaas oo ah in ay kordhiyaan muddada uu sii socon doono xayiraadda la xiriirta cudurkaasi coronavirus. dalkaasi waxa uu ka mid yahay waddamada uu sida weyn ugu dhuftay xanuunka safmarka, halkaas oo muddo ka badan 5 toddobaad xayiraadyo ay saarnaayeen, iyadoo codsigan cusub ee ra'iisul wasaaraha haddii la meel mariyana ay ka dhigan tahay in xayiraaddu ay sii socon doonto ilaa 5 bisha May ee soo aadan. Mr. Sanchez ayaa waxa uu ka digay in loo baahan yahay in aad looga taxadaro tallaabooyinka lagu khafiifinaya xayiraadda ama xadidaadaha. mar uu murtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi debemos evitar los pasos en falso y por eso waxaa waajib ah inaynu iska ilaalino marin habaabinta horumar kasta oo cusub. waxaynu hubinaynaa inay adag tahay ka hor inta aanna qaadin tallaabo cusub. haddii aynu ku sii jirno dhibaatada fayraskan islamarkaana aan sii xoojinno oo aan sii wadno nidaamka caafimaadkeenna, aragtidaas kadib waxaynu soo jeedin doonnaa tallaabo kale. haddii aynu ka war helno halis kale oo nagu soo wajahan, waxaynu dib u soo saari doonnaa xayiraad. taas micnaheedu waa ma jiri doonaan go'aamo qeexan. waxaa jiri doona tallaabooyin horay loo qaaday iyo tallaabooyin dib loo soo celinayo, iyadoo ay ku xidhan tahay sida hadba fayraskan ay uga jawaabaan go'aanada aan qaadanno. codkaasi wuxuu ugu dambeeyey warkii caalamka oo uu gurigiisa nagala socodsiinayey waryaha BBC-da cabdifataax ibraahim cagayare. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilaabe dalka Djibouti ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay daadad ku soo rogmay caasimadda Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti kadib robab mahigaan ah oo halkaasi ka da'ay 48 saac ee la soo dhaafay. daadadka ayaa lagu soo warramayaa in uu dib u dhac u keenaya dadaaladii ay dowladda wadi ay ku doonaysay in lagula dagaalamo cudurka COVID-19 oo ilaa iyo haatan 974 qof uu ku haleelay gudaha dalkaasi. 28 ka mid ah ayaa la helay maanta. arrimahaasi ayaanu ka waraysanay guddoomiyaha magaalada Djibouti Cismaan Bilo Guure wuxuu u warramay Xasan Sheekh Cumar. Djibouti de sida caalamka kale intaad ogtiin xanuun baa jira khataro imika adduunka ku baahsan oo maaragtay caabuqan 19 loo yaqaano, iyadoo ka maaragtay la dadaalaysa iyo roobkan culusna daay. marka khasaare ballaaran baa ka soo gaaray waddanka roobkii daay shalay toole maaragtay bisha 22 bisha afraad. waayahay ilaa iyo hadda khasaaraha aad og tihiin oo roobkaasi sababay maxaad nooga sheegi kartaa? dad ahaan intaan ognahay 6 qof baa maaragtay 5 dhimasho tahay, qofna la leeyahay weli la doonaya. khasaaraha kale maaragtay maaliyadeedna way culus yihiin, waa la tira koobi doonaa. waxa imika sidaa loo imika u muuqda maahin, laakiin khasaare xoog loo geystay roobka.
waxaa la sheegayaa in xaruntii dadka lagu karantiilayey iyo meelihii baaritaanada lagu samaynayey ay biyo galeen arrimahaasi maxaa ka jira way jirtaayoo maaragtay in kastoo biyuhu dee maaragtay aaladuhu waxa ma gaadhsiinaya laakiin waxaa jirtaa biyuhu way taabteen roobku dee jabuuti oo dhan ba u wala taabtay nibcadda ilaahay wada dee maaragtay qof kastaba kaytaa roon bay ahayd oo uu gaadhay roobku meeshaas shaqadana uu yarar hakiyey laakiin iminka waa wax kastaba sidiisiiba ku soo noqdo waa la hagaajiyey guddoomiye waxaa muuqata in kiisaska xanuunka covid-19 ee dalka jabuuti ay maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayaan iyadoon ognahay in dalka jabuuti dad ahaan dalal ka dad badan oo xanuunku sidaasi uusan u saamaynin oo sida dalka etoobiya ama soomaaliya maxaa keenaad isleedahay ama ku kali yeelaba jabuuti in xanuunku sidaa degdega ugu faafo jabuuti siaad ogtahay waa waddan inta badan xidhiidh badan la leh caalamka waddannada xanuunku aadka ugu horreeyeyna maaragtay xidhiidh la leh maaragtay dhan kastaba taabanaya oo shiinihii iyo faransiiskii iyo maraykankii iyo siaad ogtahay waa waddan maaragtay xidhiidho xoog la leh oo dadweynahooga xoog isku dhex socdaan jabuuti in etoobiya iyo soomaaliyana xad baan la leenahay marka xidhiidh kaa badan baan u malaynayaa inuu de xanuunka sare u qaaday inkastoo dagaal weyn lagu hayo jabuuti waa la isku diyaariyaba xanuunkaasi intii caalamka laga hadlayaa la isku diyaariyey hase ahaatee xanuunku jabuuti u taaftay xoogna maaragtay wasaaradda caafimaadkuna aad bay maaragtay ula dadaalaysaa maaragtay suuna dhibaato u keenin marka waa laga hortegay xanuunka la odhan karaa ballaadhistiisana waxaa keenay waxaan ila tahay maaragtay ilaaqaadkaa badan ee waddannada quwadda lala leenahay waxaad soo hadal qaaday dalalka jabuuti leleh xiriirka iyo kuwa leleh xuduudaha marka taa micnaheeduma waxa uu yahay in aad ka gaabiseen dhinaca xakamaynta iyo la tacaalidda xanuunkan horta si xanuunka marka intay jabuuti soo gelin baa yaa loo qaatay xamaanta sidii looga hortegi lahaa xanuunkaas marka dadaal badan baa jira la odhan kara maaragtay gaabis lama odhan kara dadaalku siyaadu ahaa haddii dadaalka xoog geli jirin khasaare ka weyn baa dhalin lahaa baynala taan maraynanaa jabuuti haddaan nahay laakiin de badida oo maaragtay dee waddannada badan iyo maaragtay asxaabtaa badan ee jabuuti leedahay yaa dhici karta inay sare u qaaddo xanuunka dadaalkuse ma yaro madaxweynaha kolka laga yimaado ilaa shicibku waxaad mooddaa jabuuti inaa horey loogu qeeliyo xanuunka oo dadku aad ugu wala foojigan yihiin haddii aynu ku soo laabanno dhinaca roobabka dabcan dad waxaa jira danyar ah oo roobabku ay saamayn ku yeesheen dadkaasi maxaad u qabateen oo ilaahay haddaad ku caawiseen iminkaana wixii deg degaa lala gaadhay maaragtay ku saabsan raashin iyo waxay huwadaan iyo waxay gogol ka dhigtaan iyo yaa lagu caawiyey laakiin tirakoob baa lagu jiraayo insha allah waa sida ugu deg deg badan baa wixii kale ka dhimana loogu qaban doonaa waayahay guud ahaan markaad eegto roobabkaani shaqadii guud ee xagga la tacaalidda xanuunka saamayn intee la-eg ayay ku yeesheen ayaantii deen laysku diyaarin maahayna roobkaa culus uu daay maahayna hadda waa lagu soo noqday waddadii lagu ilaalinaya xanuunka waana gacantaana lagu hayaa marka wax dhibaato muuqdo maaragtay xanuunkaa looga sii walwalo siyaadihii aan caalamka ka siyaadaha jabuuti ma qabto kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti cismaan bilo guure wuxuu u warramayey wariyaha b b c da xasan sheekh cumar waa hagaag isla saamaynta cudurkaasi ayaan ku guda jirnay wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa b b c da u sheegay in cudurka covid-19 uu saamayn ba'an ku yeeshay dhaqaalaha dalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in la waayey lacagihii dibadda laga soo diri jiray maadaama soomaalidii lacagahaasi soo diri jiray ay shaqala'aan ku dhacday sababo la xiriira cudurka covid-19 waxauu intaasi ku daray in 40% ay hoos u dhacday canshuurihii ay dowladda heli jirtay taftiraha b b c da arrimaha afrika mary haber ayaa la hadashay wasiirka warbixinteedana waxaa soo koobaya faarax lamaane master bayle waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in dadka qaar ay gaajoon doonaan sababo la xidhiira lacagihii xawaaladaha oo istaagay ilaa iyo $1.5 bilyan sannadkii ayaa soomaaliya loo xawilaa sannad kasta taasoo ka muhiimsan gargaar walba qoysas badan ayay noloshooda ku tiirsan tahay ayadoo mid ka mid a $40 oo midkood xawaalad ka yimaado carruur badan ayaana waxaa u suuro gasha inay iskuul aadaan ayadoo looga bixinayo lacagaha xawaaladaha dadka qaarna waxay u suuragelisaa inay gargaar caafimaad helaan ama ay cunno iibsadaan mid ka mid a shirkadaha xawaaladaha ee ugu waaweyn soomaaliya ayaa waxa ay sheegaysaa in lacagaha ka yimaada u k ay 50% hoos u dhaceen dalka waxaa horeba u saameeyey kacdoonno islaami ah dagaallo qabali ah abaaro joogto ah iyo daadad iyo ayax
waxaa suuragal ah in jugta koronaviruska uu jilbaha u dhigo waxaase jirta rajo soo muuqata $5 bilyan oo ah markaasi lacag ay dhaqaalaha ku kabayso IMF-ta oo lagu daray nidaam hufan oo dhaqaale ayaa Soomaaliya waxa uu ka dhigay mid xaq u siinaysa in laga cafiyo deynta markii ugu horreysay muddo 30 sannadood ah. aad ayuu mahadsan yahay Faarax Lamaane oo warbixintaasi Mary Haba nala socodsiinayay haddii aan eego dhegeystayaasha ra'yigooda soo dhiibtay gaar ahaan qodobkii aan ku bilownay ee dalka Djibouti Ismaaciil Macalin oo ka soo qoray Muqdisho waxa uu leeyahay dalka Djibouti xaaladda corona ay uga sii dartay waliba dadka ku laayay caasimadii wuxuu runtii waa arrin saameynteeda leh waxaan laga baryaynaa buu yiri inuu ka badbaadiyo dadka muslimiinta ah musiibooyinka waxaana dowladda Djibouti looga baahan yahay buu yiri inay dadaal dheeri ah la timaado si arrintaasi wax looga qabto ciid qaasim warsame waxa uu joogay isagana burco waxa uu leeyahay roobabka xoogan ee Djibouti ku laayay dadka waa qatar nimco kastoo eeba keenana waxay leedahay buu yiri nusqaanteeda waxaan alle subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu naxariistiisii intii ku geeriyootay roobabkaasi naxariistiisa ka waraabiyo waxaan uga baaqayaa dowladda Djibouti inay gargaar u fidiso dadkii uu khasaaraha ka soo gaaray roobabkaasi waxay dhegeystayaasha kale ee ra'yigooda soo dhiibtay aad ayuu u mahadsan halka dhegeysan laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ayaa soo saartay habraac ay tahay in masaajidda dalka oo dhan ay raacaan ka oo ku saabsan sida loo oogayo salaada xilliga oo dalka uu ku jiro dhibaato ka dhalatay cudurka COVID-19 go'aankani ayaa ku soo beegmaya xilli maalmahan uu wada hadal u socday madaxda culimada Soomaalida ee Muqdisho jooga iyo mas'uuliyiinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta shalay ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in tiradii ugu badnayd ilaa iyo intii uu cudurkan dalka ka dilaacay ay maalin u dhinteen cudurka COVID-19 taa oo ahayd 6 qof haddaba go'aankaasi masaajidda la xiriira iyo xaaladda guud ee cudurka COVID-19 ayaan goor sii horeysay waxaan ka waraystay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan habraacyada masaajidda loo dejiyey ee ay wasaaraddu soo saartay waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qodob qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in aadaanka jumcada iyo jamaacada loo oogo si kooban iyadoo la qaadanayo taxadarka iyo talooyinka caafimaadka in lagu dadaalo nadaafadda islamarkaana la bedelo ama la dhaqo gogasha masaajidda taalla sidoo kale suuliyada masjidka iyo weysaqaadka in la xiro oo qof walba ahina uu gurigiisa kasoo weysaysto islamarkaana uu musqul ka soo galo in dadka masaajidda ku tukanaya ay kala fogaadaan xilliga salaada isuna jirsadaan min 1 mitir tirada ku tukanaysa masaajidana in la soo koobo in qof waliba gurigiisa in uu ka soo qaato salli ama cimaamad si uu wajiga u dhigto marka uu sujuudayo sidoo kale qodobadaasi waxaa ka mid ah xasanow in qof walba oo ku soo tukanaya masaajidda afka iyo sankaba soo xirto oo waxaan afka qalaad lagu yiraahdo mask uu soo xirto ama sidoo kale marabaati ah inuu wajiga ku xirto ama cimaamadiisa in uu wajiga ku xirto in masaajidda sidoo kale loogu tabaruco waxyaabaha faraha la isaga dhaqo ee fayraska iyo jeermisyada dila xasan geela qodobada markaad eegto waxyaabaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ah in xilliyada salaadaha waajibka ah la isku xijiyo aadaanka iyo aqimka oo halkaas mar kaliya salaada looga baxo sidoo kale waxaa ka mid ah in salaadaha sunnada ah dadku ay guryahooda ku oogaan oo aysan masaajidda imaanin qodobadaas iyo habraacyadaasi waxay soo baxayaan iyadoo kulamo ay u socdeen maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda diinta iyo madaxda culimada dalka go-aankana waxay wasaaraddu tiri wuxuu khusaynayaa guud ahaan dalka marka sidee ayaa la leeyahay go'aankani waa ugu dhaqan geli karaa masaajidda oo dhan dabcan waa su'aal aad muhiim u ah xasanow way adag tahay in habraacyadaas loogu talagalay oo dhan in masaajiddu ay dhaqan geliyaan maxaa yeele waxaad og tahay tirada masaajidda magaalooyinka waddanka ku yaala oo dhan gaar ahaan magaalada muqdisho aad jidkaad martaba aad masaajid ku arkayso cidda u xoog heli karta marka laga reebay inay mas-uuliyad isi saaraan dadka madaxda ka ah imaamada iyo mu'adimiinta masaajidda iyo guddiyadu inay go'aanadan u hoggaansamaan laakiin waxaan sugi doonaa bal go'aanadaasi sida ay uga dhaqan galaan masaajidda waddanka ibraahim xilliyadii ugu dambeysay waxaan ognahay in tirada dadka soo ridanaya cudurkan COVID-19 ay sii kordhaysay marka haatan maxaa ugu dambeeyey 24 saac ee la soo dhaafay waxaa la wariyey kiisaskii ugu badnaa ee cudurka maalin keliya dalka ugu dhimata xasanow waxaa la xaqiijiyey in 6 qof ay dalka gudihiisa cudurka ugu geeriyoodeen taasoo tirada guud ee cudurka ka dhigaysa
14 qof tan iyo markii cudurka kiiskiisii ugu horreeyey laga helay Soomaaliya bishii hore ee la soo dhaafay bartamaheedii. Waxaa sidoo kale la soo wariyay 49 kiis oo cusub oo cudurkaasi ah 24 saac la soo dhaafay. 30 kamida 49 kaasi waxa ahaayeen rag, halka 19 kalena ay dhadig ahaayeen. sidoo kale 24 saac la soo dhaafay waxaa la diiwaan geliyay ilaa 2 kiis oo bogsasho ah ama dadkii hore cudurku ugu dhacay oo cudurka ka bogsaday oo beledka galay hadda. aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Aadan oo goorsii horeysay qadka igu warramay ayuu ahaa. dhegeystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay. waxaa ka mid ah Sadiiq Aadan Xidig, waxa uu joogaa Cabudda, waxa uu yeeyahay hadalka ka soo yeeray dowladda Soomaaliya ee ah in laga taxadaro cudurkan coronavirus, gaar ahaan marka masaajidda lagu tukanayo. waa tallaabo wanaagsan, waxaana fiican buu yiri in wax kasta oo laga hortagayo cudurkan coronavirus la soo dhaweeyo, gacana lagu siiyo dowladda. Maxamed Shaafi waxa uu joogaa Boorame, waxa uu yiri dowladda Soomaaliya arrintan go'aanka ay ka soo saartay weliba qaabka salaadaha lagu tukanayo masaajidda, waxaan leeyahay waa inuu noqdaa mid aad looga baaraandegay buu yiri oo dhinac kasta laga miisaamay oo uusan noqon mid lagu degdegay, maadaama buu yiri ay fooda inagu sahayso bishii barakaysneed ee Ramadaanka. hagaag arrimaha COVID-19 iyo salaadaha siduu u saameeyay haddii aan halkaa kasii ambaqaadna, dalka Sacuudigana boqortooyada dalkaasi Sacuudi Carabiya waxa ay soo saartay amar cusub oo la xiriira qaabka loo tukanayo taraawiixda, gaar ahaan masaajidda barakaysan ee Maka iyo Madiina. dowladdu waxa ay sheegtay in aanan la geli doonin xaramka oo ay ilaa ay haatan masaajidada kale wadankana ay saarnaan doonaan bandow. salaada taraawiixda ayaa qaab laga bedelay oo ragcadihii hore in ka yar ayaa laga dhigay, iyo sidoo kale ducooyinkii ayaa wax laga bedelay. arrimahaasi waxaanu ka wareysanay Dr. Maxamed Xuseen Abu Osama oo jaamacad ku taala magaalada Jidda ka diyaarinaya shahaadada PhD-ga gaar ahaan culumta shareecada Islaamka. geelow waa mahadsan tahay. midda xigta amarkan ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu daba yaalaa ama uu daba socdaa amar horey u soo baxay oo ahayd inaan salaadaha lagu tukanin masaajidada, jimcooyinka iyo jamaacadahaba aan masaajidada la iskugu imaan. taas waxaa laga istisnoodoo laga reebay labada xarameyn oo loo ogolaaday in salaada taraawiix lagu tukan doono. yaa ku tukan doono salaada taraawiix ayada waxay noqon doontaa dadka Maka iyo Madiina degan oo keliya, oo ayagoo dhanna aysan ahayn. xataa shaqaalaha xaramka waa la baryareeyey oo qayb baa imaan doonta inta lagama maarmaanka oo shaqadooda loo baahan yahay oo keliya, sida wartabiyeyaasha, sida dadka maxay ahayday xaramka dhaqaaya. marka salaada qaabka loo tukan doonana waa ka bedelan tahay qaabkii hore loo tukanayay laga soo bilaabo cahdigii Cumar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ilaa yawmina hada. waxaa la tukanayay 23 ragcadood baa xaramka lagu tukan jiray. tii ayada ahayd baa isbedel uu ku yimid, waxaana loo bedelay 13 ragcadood. sidoo kale waxaa la reebay go'aanada soo baxay, waxaa kamid oo la reebay in sanadkan aan labada xaram lagu ictikaafi jirin oo maxay ahayd sanadadii hore lagu ictikaafi jiray. sanadkan wuu ka duwanaan doonaa sanadadii hore oo ictikaaf ma jiri doona geelow. waxaa jiray go'aano hore oo dabcan sidaad sheegtayd ba ahaa in taraawiixda aan la tukan doonin dalka oo dhan. marka waxaa jira 24 saac xitaa deegaano kale oo uu saaran yahay bandow. marka arrintan maxaa keenay in laga noqdo oo la yidhahda xaramka dib ha loo furo? geelow xaramka furitaankiisa markii ugu horreysay haddeertan maaha. go'aankan waxaa ka horreeyey maalmihii salaadaha la reebay oo la yidhi laguma tukan karo masaajidada, jumco iyo jamaacaba la iskuguma imaan karo. xaramka asaga waa laga istisnooday, waa laga reebay oo waxaa loo ogolaaday in salaadii jumcana la tukado, lasoo gaabiyo 15 daqiiqo salaadii iyo jumcihii lagu soo gaabiyo. waxa isbedelay waxa weeye maxay ahayd salaada taraawiixa oo marka hore mamnuuc ka ahayd masaajidka xaramka oo ayadana soo gelaysay masaajidadii la reebay ka mid ahayd baa laga istisnooday. masaajidada kale ayaga sidii ay u xirnaayeen bay u xirnaan doonaan, guryahana lagu tukan doonaa. bilidaafati ilaa dalik waxaana usii dheeraada salaad la'aantaas masaajidada lagu tukanaynin bandow 24 saacadood saaran oo maxay ahayd dadka inay guryahooda isku takooraan oo ay ka soo bixi waayaan. xaramka haddii aan u soo laabanno, duruus ayaa laga akhrin jiray sida fiqi iyo tafsiir. marka duruustaasi miyaa la joojiyey mise hadda
si kale wax u socdaan masaajidka xaramka shaqadiisoo keliya ma ahayn in lagu tukado ama maxay ahayday muxaadarooyin laga soo jeediyo asagaaba wuxuu ahaa jaamacad socota waxaa ku yaalay madaaris tanawiya baa lagu dhex dhiganayay oo sida madarase la yidhaahdo machadulxaram oo kaleeta ama jaamacatulxarameyn jaamacad la dhahda ayaa ku taalay oo ardayda subaxii ay yimaadaan galabkiina laga noqdo duruustii ayada ahayd in la isku imaadkii unbaa joogsaday laakiin qaab online ah bay u socdaan maxay ahayd program la yidhaahdo blackboard baa maxay ahayd casharada lagu bixiyaa sidoo kaleete barnaamij kaloo zoom la yidhaahday macallimiinta casharada ku bixiyaan duruustii ayada ahayd ma joogsaninoo way socotaa laakiin qaabkii ay u socotay oo isku imaadka ahaabaa isbedelay laakiin online baa hadda yaa lagu qaadanaya oo duruustii ayada ahayd way socotaa amarkan haatan soo baxay ilaa goorme ayuu ku eg yahay dadkase sidee u arkeen amarkaasi abadan lama garanayo ilaa iyo goorta uu ku ekaan doono inuun allabariga la badiyo ayay maxay ahayd dowladda ay soo jeedisay dowladda amaradeeda waxaa ka mid ahaa ilaa ishcaarin aakhar oo macnaheedu uu yahay ilaa iyo amar dambe haddii lagu dhahana waxa weeyaan waqti lama xadidin gooray noqon doonto lama ogo dadka sida ay u qaabileen haddii aan wax ka tilmaamo shacabka sacuudiga marka ugu horeysa waa dad muslimiina waa dad rumaysan qadaha iyo qadarka ilaahay iyo dadka kale ee dalkaas ku noolba midda labaadna waa dad u dhega nugul dowladooda oo wixii awaamira ay soo saarta maxay ahayday qaata inta badan oo aanan khilaafin khilaafkana uu ku yeeryahay marka dadka awaamirta dowladda ay soo saartay way qaateen ayagoo raalli ka ah guryahooday joogaan isku socodka wuu yaraaday kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen abu cusaama oo ah nin Soomaali ah oo degan magaalada Jidda ee jaamacadna ka diyaarinaya shahaadada PhD-ga culunta shariicada islaamka oo qadka telefoonka igu waramayay war haatan soo dhacayna dalka Kenya wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i ayaa sheegay in laga bilaabo maanta 7 fiidnimo magaalada Mandera aysan jirin cid ka bixi karta ama soo gali karta muddo 21 maalmood ah sabab la xiriira cudurka coronavirus oo halkaasi ka jira dabcan wixii ku soo kordhay idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu eebaha awoodda leh idmo khabiir dalka Mareykanka ah oo ku xeel dheer cudurrada ayaa sheegay in mawjad labaad oo cudurka COVID-19 ah ay halis u keeni karto weliba mid ka badan midda haatan jirta maadaama buu yiri dhowaan uu bilaaban doono xilliga dalkaasi dad badan uu aafeeyo hargabka Robert Redfield oo ah agaasimaha xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ayaa digniintan jeediyey xilli gobollo badan oo dalkaasi Mareykanka dib ay u furayaan ganacsiga shalay oo talaado ahayd ayaa dalkaasi guud ahaan waxaa la sheegay in cudurka COVID-19 ay u dhinteen in ka badan 2,700 oo qof sida lagu sheegay xog ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins waana dhimashadii ugu badnayd oo hal maalin ah tan iyo markii cudurkaasi ka dilaacay dalkaasi dalalka uu saameeyey waxaa jira kale oo badan oo ka mid tahay dalka Kenya oo madaxweynaha dalkaasi uu sheegay in dadku ay u hoggaansamaan awaamirta wararka arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Faarax Lamaane agaasimaha xarunta xakamaynta cudurrada iyo ka hortagooda ee Mareykanka Robert Redfield ayaa waxa uu sheegay in khatartu ay aad u sarreyso iyadoo xanuun cusub oo dilaaca ay u badan tahay inuu ku soo aadi doono xilliga hargabka Mareykanka ilaa iyo 800,000 oo kiis ayaa soo maray waana tiradii ugu sarreysay dunida oo dhan waxaana ilaa iyo hadda u dhintay 45,000 oo qof sida ay ku soo warramayso jaamacadda Johns Hopkins California ayaa isniintii waxaa soo maray dhimashadii ugu tirada badnayd halka New Jersey-na ay tahay gobolka ugu daran ee xanuunku uu ku dhuftay marka laga yimaado New York madaxweyne Trump ayaa waxa uu joojin doonaa codsiyada deganaanshaha Mareykanka ee Green Card-ka kaasoo u oggolaanaya dadka muhaajiriinta ah inay si sharciya u deganaan karaan dalka Mareykanka ayna dalban karaan jinsiyadda Mareykanka Spain baarlamaanku waxa uu ka doodayaa codsi ka yimid ra'iisul wasaaraha oo ah in xayiraadda dalka saaran la sii dheereeyo Spain waa mid ka mid ah dalalka caalamka ee cudurka coronavirus sida xun ugu dhuftay waxaana dalku uu xayiraad buuxda ku jira muddo ka badan 5 toddobaad codsiga ayaa xaaladda degdegta ah sii kordhinaya ilaa iyo 9 bisha May waxaana la filayaa in baarlamaanka Spain uu ansixiyo muddo kordhintaas laakiin kooxaha qaarkood oo ay ku jiraan 2 xisbi oo ka soo jeeda gobolka Catalonia iyo xisbiga la yiraahdo Vox Party ee midigta fog ayaa waxa ay bidhaamiyeen inay ka codayn doonaan isagoo baarlamaanka ka hadlayay
ayuu hogaamiyaha xisbiga vox santiago abascal waxa uu ku eedeeyey xukuumadda xilgudasho la'aan iyo iskuday ah inay doonayso inay aamusiso codadka ka horjeeda xayiraadda. waxa aysan awood u yeelan karin qaybinta qalabka lagu xirto afka iyo sanka, balse waxa ay dareemayaan inay awood u yeelan karaan horjoogsiga dhammaan dadka reer Isbayn. waxaa u suurageli weyday in baaritaannada ay ku kala saaraan dadka xanuunka qaba iyo kuwa caafimaadka qaba ee uu xooggan yahay difaaca jirkooda, balse waxay awoodi karaan inay kala saaraan dadka Isbaanishka ah. sida laga soo xigtay dadka bogaadiya dadaallada xukuumadda, waxay ansixiyeen gacan bidixaynta dowladda. madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyattana waxa uu sheegay in 10 qof oo filim laga duubay ayagoo ka baxsanaya karantiil khasab ah magaalada Nairobi in la xiri doono oo dib loo celin doono si ay karantiilka u soo dhamaystaan. saaka aroortii ayuu hadalka jeediyey saacado kadib markii baraha bulshada lagu wadaagay fiidiyowga, waxaana ka muuqday dad ka soo boodaya gidaar xayndaab ama dayr u ah mid ka mid ah xarumaha karantiilka. warbaahinta maxalliguna waxa ay sheegeen in tirada dadka baxsada lagu qiyaasayo ilaa iyo 50 qof, walow aysan xukuumaddu xaqiijin. madaxweyne Kenyatta waxa uu sheegay in dhammaanba dadka baxsaday haybtooda la aqoonsaday dibna loogu celin doono xarumaha karantiilka. shirkadda Netflix ee filimada la daawado karaysana waxa ay sheegaysaa in faa'iido weyn ay heshay xilligan oo xanuunka coronavirus dad badan uu guryaha ku xiray dunida oo dhan, waxaana la sheegayaa in 3 bilood ee sanadka ugu horreysay ay 16 milyan oo qof akawnno ka furteen, tiradaasoo labalaab ku dhow 3 bilood ee ka sii horreysay. aad ayuu u mahadsan yahay Faarax Lamaane oo warbixintaasi nala socodsiinayay. dhegeystayaal, haatan saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 5 galabnimo iyo qadar 31 daqiiqo ah. hadahan oo kale waxaad nooga barateen inaan idiin soo gudbino qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa. waxaa diyaar u ah maxamed ayraahde cabdifataax ibraahim caga yare oo gurigiisa ka soo tabinaya. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in cudurka COVID-19 uu saameyn culus ku reebay dhaqaalaha dalkiisa. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in ay joogsadeen lacagihii la soo dhigi jiray xawaaladaha sababtoo ah Soomaali badan oo ku nool qurbaha ayaa waxa ay ku soo dhaceen buu yiri shaqo la'aan fayraska nawadi. waxa uu intaasi ku daray in 40% uu hoos u dhacay dakhligii soo gali jiray dowladda sababtoo ah waxaan u suuragelin in ay soo uruuriso canshuurihii. bangiga adduunka ayaa waxa uu ka digay in cudurka coronavirus uu sababayo hoos u dhac weyn oo ku yimid lacagihii ay shaqaalaha muhaajiriinta u diri jireen qoysaskooda ku sugan dalalkooda hooyo. bangiga ayaa sheegay in lacagahaas xawaaladaha la dhigo ay sanadkan hoos u dhici karaan 20% ama in ka badan $100 bilyan. qaramada midoobeyna waxay qiyaasaysaa in ku dhowaad 800 milyan oo qof oo ku nool daafaha dunida ay ku tiirsan yihiin lacaga ay u soo diraan qaraabadooda dibadaha u tagay si ay u soo xamaashaan. barasaabyada 19 gobol oo ku yaal waqooyiga waddanka Nigeria waxa ay albaabada isugu dhufteen dhammaan dugsiyadii quraanka kariimka. tallaabadaas oo ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan faafitaanka cudurka coronavirus. waxaa la qiyaasayay in 9 milyan oo carruur ah oo dugsiyadaas dhigan jirtay ay guryahooda loo kala diri doono. dowladda Jarmalkana waxa ay bilaabaysaa tijaabo caafimaad oo bini'aadamka lagu sameynayo taas oo suuragal ay tahay in tallaal ay u noqoto cudurka coronavirus. tijaabadaas ayaa waxaa lagu wadaabaa leeyahay in la bilaabo dhammaadka bishan. shirkadda Jarmalka ee BioNTech ayaa waxay sheegtay in tijaabada lagu sameyn doono ku dhowaad 200 oo qof oo mutadawiciina. ugu dambeynna walow ay jiraan xayiraado la xiriira cudurka coronavirus oo lagu soo rogay magaalada Moscow, haddana shuuciyiinta Ruushka ayaa waxay isugu soo baxeen fagaaraha cas ee lagu magacaabo dhismaha Lenin si ay halkaasi ubax u dhigaan si ay u xusaan 150 sano guuradii ka soo wareegatay markii uu dhashay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Vladimir Lenin, kaas oo meydkiisa dadku ay halkaasi ku booqdaan. xisbiga shuuciga ayaa sheegay in xafladda loo qabtay qaab waafaqsan xadidaadaha la dhigay ee lagu doonaya in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19. qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaan waa naga inta. xasan cali geelle. aad ayuu mahadsan yahay cabdifataax ibraahim cagayare oo warkaasi nala socodsiinayay. wararka kale ee aad noo soo socdana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqoto ama ciddi kale mas-uul ah meeshii dadkaasi ka hadlayaan joogta
qofka dadka marin habaabiya waxaa loo baahan yahay in dadkaas lagana aamusiyo oo la qabto qofka nooca samaynaya saxaafadda waxaa samaynaysana lagala xisaabtamo waa qaabka loo maarayn karo wararka been abuurka ee ka dhashay cudurkan COVID-19 oo aad gadaal ka maqli doontaan hase yeeshee marka hore aan aadna dhanka iyo Baraawe qaar ka mid ah qowmiyadda reer Baraawe ee magaalada Baraawe ayaa wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ku eedeeyay waxa ay ku tilmaameen xaqiraad xuquuqda bulshada ee reer Baraawe hadalkan ayaa yimid kadib markii wasiirka warfaafinta maamulkaasi oo shalay BBC-da kala hadlayay arrinta Radio Baraawe uu sheegay in luqadda dadkaasi ay tahay mid adag oo aan la fahmi karin haddaba waxaa BBC-da la soo xiriiray Abuye Maxamed Munye oo ku magac dheer Abuye Batroni waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa uu ka cabanayo waxaan ka cabanaynaa wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed oo fargeliyey xuquuqa reer Baraawe ayuu fargeliyey waxa uu fargeliyey Radio Baraawe waxa ka soo baxi jiray idaacadaha afbaraawa iidayaal oo afbaraawa ayaa ka soo baxi jiray wuxuu leeyahay afkaas ma la sheegi karo afkaasna mamnuuc ayay ka ahay Radio Baraawe cancel waaye mana jiro afkaas meel ka soconayna uusan jirin marka maxaad ku qoonsateen marka warkiisa waxaan ku qoonsanay anaka ninkaas isku dir buu rabaa anaka waxaan na dhahaa ingamaas iyo toddobaatan dad soo jireen ah 2000 sano ama zayda xagga cilmaaniya ayaan kana anaka dad ilbaxanahay anaka dadka soo jireen nahay weligeena wax isku xirimaad ma imaanin ninkaas wuxuu rabaa inuu isku xirimaad abuuro magaalada khalalaasna magaalada inuu abuuro rabaa ninkaas waxaan ka dacweynaynaa Koonfur Galbeed madaxweynihiisa iyo ra'iisul baarlamaanka ayaan ka dacweynaynaa raaligelinna asagana kama rabno waxaan ka rabnaa lafta gareen iyo ambassador Ali oo ra'iisul baarlamaanka ayaa raaligelina ka rabnaa ninkaas ma ka rabno ninkaas agteena dambiile aska yahay dambiile waaye ninkaas waa dad soo jireen oo dhan reer Baraawe magacooda raba inuu tirtiro ma tirtiri karo mana la yaqaano ninkaas waa wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Abuye annaga ma hayno cadaynaha inuu yiri dadkaasaan tirtirayaa iyo sidaad u dhigaysa hase yeeshee waxa uu sheegay in afka aad ku hadashaan ama dadka Baraawaaniga uu yahay af dad badan aysan fahmi karin haatana loo baahan yahay wacyigelin marka waxaan sida ahayn ma jiray waxa ku jira hadaladiisa aflagaado si bareer ayaan loo gaarsiiyey ninkaas afkaas af jira maaha aftaan waaye afkaas waa af international waa af East Africa dhan oo lagu hadli karo maanta manhajka Baraawe iskoolaadka dhan ayaan ku dareynaa anaka waa tusayna waxaan nahin anaka waa tusayna oo Radio Baraawena mana falgeli karo mana waxna ka sheegi karo afkaan aan ku sharaxayna anaka Radio Baraawe reer Baraawe ka timid reer Baraawe ka yimid Abuye waxaa tiri wasiirku waxa uu rabaa in dad isku diro in oo foodo meesha ka abuuro laakiin adiga ayaa haatan hanjabaya markaas oo uma muuqato dhibaatada inaad idinku wadaan maya dhibaato ma wadno anaka dhibaato ma wadno anaka qori ma qaadanin ul ma qaadanin toore ma qaadanin waa la yaqaana anaka reer Baraawe waa dad aan xuduud takhaatiirka aan xuduudda lahayn ayaan ka mid nahay anaka dagaal ma galin waxba ma galin reer Baraawe dad nadiif waaye asaga hadduu rabo hadda reer Baraawe inuu wax ka abuurto kolkiisuu ka helaa ninkaas anaka mana aqoonsan ninkaas intii aad warbaahinta uga jawaabi lahaydeen maxaad diiday in maamulkii Koonfur Galbeed aad la xiriirtaan odayaashiina oo aad tidhaahdaan inagu hadalkaasi nama qabto ama wixii dhib aad qabtaan aad u jeedisaan sidii asaga oo raadiyaha BBC ku sheegay annagana waa ku sheegaynaa maxaa jira asaga maxaa naga badiyaa BBC asaga ma sheegino shalay annagana waa sheegaynaa maanta BBC xaq baan ku leenahay annaga weli adiga waxaad iga duwaysa codsankaa samaynaa afbaraawe aan hadda waxyar iga du min fadlak waysaanak tus waxis yahay annaga dad taariikhaan nahay annaga dad ayaar ma nihin annaga adigu sidaan ayaad leedahay wasiirku waxa uu sheegay in luqadaasi aysan hayn luqad la fahmi karayo maxaa xal marka luqadda la fahmaayo waaye luqadda international waaye luqadda East Africa oo dhan ayaa lagu hadlaa meel kasta ayaa ku marsi kartaa manhajka Baraawe hadda
dugsiyaasha dhan ayaan ku daraynaa dadka ha ka faa'iidaysadaan dadka laakiin manhaj wixii luuqad ku soo dari karaya waa dowlad oo keliya soo maahan dowladdan ka codsanayna waa geynaynaa nidaamkii dhan aan u sheegaynaa kaasi waxa uu ahaa abuyi maxamed muunye oo ku magac dheer abuyi batroni oo qadka telefoonka iigu warramayey dhanka iyo magaalada badhan haddii aan aadnana magaaladaasi badhan waxaa la xiray cisbitaalkii guud ee halkaasi ku yeelay sababo la xiriira cudurka coronavirus qaybta la xirayna waa qaybta bukaan socodka iyadoo ay mas-uuliyiintana sheegayaan in ay sugayaan qalab caafimaad oo haatan u ballansan intaa ka horse aysan furi doonin qaybtaasi balse ay u shaqaynayaan dadkii horey cisbitaalka usii jiifay axmed jibriil cali oo ah agaasimaha cisbitaalkaasi guud ee badhan ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey sababta ay u xireen cisbitaalka toosa looma xidhin si kumeel gaaran baanu u xidhnay sababtuna waxa weeyaan qalabkan waddanka oo dhan ku yar ee xanuunkan faafaya maaragtay la iskaga difaaco oo aad ogtahay waddanka oo dhan waa ku yaryahay saa awgeed weli iyadoo aanana soo gaadhin wixii la iskaga difaaci lahaa ama wixii lagu fahmi lahaa xanuunkan baanu waxaan ku talagalnay inaanu hakin samayno oo dadka beeshanka imanaya wixii intii macquul ah in la joojiyo laakiin cisbitaalku ma xidhna ee dadka jiifay oo dhan waa loo shaqaynayaa oo sidii bay shaqadu u socotaa laakiin waxaanu hakinay waxa weeyaan dadkii bukaan socodka ahaa ee badnaa baanu hakinay waan gartay waxaad tiri si kumeel gaar ah marka waa ilaa goorme ilaa waktiga waxaan rajaynaynaa wasaaradda caafimaadka waxay noo soo wadaa qalabkaa aan kuu sheegayo wixii la heli karo oo maaragtay protection ama difaac u noqon kara shaqaalaha shaqaynaya marka qalabkaasaa wasaaraddu noo soo wadaa oo aan rajaynaynaa inuu soo gaaro sida ugu dhaqsaha badan marka cabsidiinnu waa howlwadeennada caafimaadka oo keliya maya howlwadeennada qura maaha waxa weeyaan dadka imanaya ee beeshinka ah ee isbitaalka usoo doonanaya caafimaadka usoo raadsanaya laftooda ayay danta ugu jirtaa in macnaha aan laysu gudbin oo maaragtay haddiiba shaqaalaha caafimaadka laftiisu way gudbin karaan kuwanna way u gudbin karaan marka waxa weeyaan wixii sidii ugu macquulsanayd baan waxaan u samaynay inaanu dadka bal horta outbashinka ama bukaan socodka ah aanu hakinno inta qalabkaasna soo gaadhayo maxaad ku samaynaysaan marka xaaladaha degdega ah haddii ay yimaadaan sida qof dumar ah oo foolanaysa oo kale may taas waa la qaabilaa waanu qaabilaa waxaweyaan taas waxa weeyaan waa wixii emergency waa emergency waana taasu shaqadaas way socotaa oo waxa weeyaan iyada mar raba lama joojin laakiin waxa aanu joojinay waxa weeyaan dadka bukaan socodka weeye xanuunada maaragtay bukaan socodka dee u soconaya ilaa iyo inta aad qalabkaasi ka helaysaan bukaan socodka waa uu xirnaanaya marka dadka haddii uu cudurkan ka soo qaad uu soo rita waxaad leedihiin ha noo imaadina oo guryihiina ku ekaada waxa weeyaan dadku maadaama aanan wixii awoodda ah aanan u qaban karin wixii critical ah oo maaragtay daxaado culusa iyadu waxa weeyaan waa wax gaara oo wixii loo qaban karo waa loo qabanayaa laakiin dadka wixii magaraysaan markaa soconayo oo macnaha dee xanuunkii ku jiro calaamadihi ay ka muuqdaan guryahoodaan u tilmaamaynaa si ay karantiin ugu galaan cudurkan haatan ma soo bilaaban muddo ayaa la soo sheegayey soomaaliya gudaheeda markuu ka bilowdana dee maba dhoweyn marka soo uma muuqato inaadan u diyaar garoobin diyaargarowga anagu waxa weeyaan waanu u diyaar garownay laakiin qalabkan sideedaba waxaad og tahay inuu adduunka o dhan iska maaragtay cidhiidhi ku yahay soomaaliyana waad og tahay inuu sida heerka uu ka joogo macnaha qalabkaasi waxbaa wasaaradda soo gaadhay wasaaraddu weli namay soo gaadhsin laakiin way soo wadaa oo way keenaysaa isbitaalka wayna ballan qaaday marka waxa weeyaan taasaa keentay macnaha qalabkan waa qalab aad maaragtay u yar waddanka waa ku yar yahay nama soo gaadhin annaga marka qalabkaasi taasaa keentay inaanu dadka outbashinka aanu hakinno dadka isbitaalka jiifa horeyba aad la tacaalayseen iyagu maxaad ku samaynaysaan waxaad tiri waa loo adeegayaa sidee baad u xaqiijinaysaan in iyaguna aad cudurka qaadsiin iyaguna idankeedan qaadsiin haddii uga jiraba waxa weeyaan shaqadu markii horeba way socotay waxaanu haddeer yaranay waxa weeyaan socodkii badnaa iyo shaqadii badnayd maadaama cisbitaalku yahay cisbitaal keliya gobolka u adeega dadka ku xidhnaa ay yihiin dad aad u fara badan waxaanu yaraynay tiradii baanu aad u dhinnay waxaana u dhinnay waxa weeyaan sida ugu suurtagalsan dadka bukaan socodka ah horta inaanu hakino dadkan jiifa markii horeba waa loo shaqaynayay haddana sidii baa lagu shaqaynaya iyadoo oo sidii dee ay ahayd in loo raaco barnaamijkan laysaga ilaaliyo oo laysaga difaaco kaasi wuxuu ahaa axmed jibriil cali oo ah agaasimaha cisbitaalka guud ee badhan qadka telefoonka ayuu igu warramaya halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da
وهاجاج هذا نقله waxaad nooga barateen dabcan in dhageystayaasha su'aalaha ay ka qabaan cudurkan COVID-19 ee dunida aafeeyay looga jawaabo dhakhtar ayaa qadka ku jira waa Dr. Cusmaan Dufle oo ah kamid ah dhakhaatiirta ugu waaweyn Soomaalida magaalada Muqdisho ayuu qadka kaga jira Dr. soo dhawow Assalaamu alaykum BBC waan jeclaan lahaa bal inaan kula wadaago dhageystayaasha su'aalaha ay soo direen kuwa badan dabcan walwal ay ka muujinayaan cudurkan COVID-19 dadkaasi waxa kamid ah Xasan Axmed Cabdulle waxa uu joogaa magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay xanuunkan COVID-19 waa xanuun ku dhaca habdhiska neefsashada wax saameyn ah ma ku yeelan karaa mustaqbalka dadka xanuunkan markay ay ka bogsadaan بسم الله الرحمن الرحيم وماسنتين ندان جوابته توس وأبارة إذا كوبان وحاوي عذر كان وحاوي ماله وأصيب أي كم تعقف كمركو قو آد ودرية وجارسية هيركا حنو لي هذا وسيفير كجارسيو مركو قف كقبا عذر رذا صاب مرينكا أما يعني اسم على نف مرينكا سيد دتك نف تقبا سيد دتك برونكايتس كقبا markay qabaan cuduradaas ayuu aad u daran markuu ku dhaco halista gelin karaa la yiraahdaa wuxuu gaarsiin karaa severe caseska ku noqdaa balse haddii uu ku dhaco qofka ka raysto waa maya badanaa wuxuu noqon karaa noloshiisa caadiga ahayd ayuu u noqon karayaa waa gartay Cabdicasiis Cabdullaahi Mukhtaar oo joogo Baydhabo waxa uu weydiinayaa su'aal ah wuxuu leeyahay saameynta ugu badan ee cudurkan COVID-19 waxa laga yaabaa inuu ku yeesho dadka barakacayaasha ah maxaa tala ah oo la gudboon in ay sameeyaan dadkaasi iyo hay'adaha caafimaadka si looga gaashaanto in cudurka coronavirus uu ku dhex faafo dadka barakacayaasha ah runtii sideedaba waa su'aal fiican sideedaba cudurrada faafa goobaha dadka ay ku urursan yihiin sida xeryaha qaxootiga oo kale barakacyaasha waa meelaha runtii aad ugu daran markuu yimaado cudurradaas faafa nooc kasta noqdaan COVID-19 waa kasii daranya maxaa yeele bacdama aan ognahay xawligiisa fiditaankiisa inuu aad u xoogan yahay weliba qaab badan oo toos iyo qaab dadbanba ay aad u xoogan tahay weliba yacni dadkii haddii wada degan yihiin isdulfuul uu jiro oo aad laiskugu dhow yahayna ay tahay waxyaabaha aad u fidiya marka khatar weyn ayaa ka imaan karta ilaahay kuma keenay haddii yacni goobahaas oo yacni barakacyaasha marka waxaa loo baahan yahay dabcan in wacyigelinta socota oo weliba ah gacmaha dhaqitaankooda iska ilaalinta qofka muxuu ahayto kala fogaanshaha inkastoo weliba goobta ay ku khasbaysa in laisku wada dhow yahay ama guryaha ay isdul fuulaan waxaa loo baahan yahay isku imaatinka yacni muxuu ahayto wada xiriirka hoose iyo in la kala fogeeyo wacyigelinta waxyaabaha ku baxo joogtada ahna inay aad u camal falaan ee aad yacni u dhaqangeliyaan sida saabuunta gacmaha iyo quficii oo la ilaaliyo hindhisadii oo la ilaaliyo lagu hindhisoodo geedkii ama gacanta lagu hindhisoodo waxaasoo dhan waa waxyaabaha looga baahan yahay bulshada meesha degan laakiin bulshada waxaa kaloo yacni jira authority-ga ama yacni hay-adaha caafimaadka ee gacanta ku haya goobahaas waxaa loo baahan yahay dabcan in ay u dhaqaaqaan wacyigelinta iyo muxuu ahayto wax ka qabashada gaar ahaan waxyaabaha faraha lagu dhaqanayo iyo goobaha lagu dhaqanayo iyo qaabkaas oo muxuu ahayto wacyigelinta ah inay aad uga howlgalaan loo baahan yahay dabcan hay-adaha يعني marka haya ama authority-ga ama muxuu ahayto hay'adaha caafimaadka ee ku dhex jira meesha goobaha ka shaqeeya muxuu ahayto waad mahadsan tahay dhegeystayaal badan ayaa su'aalo soo weydiinaya waxaan filayaa dadka barakacyaasha iyo hay-adaha inay taladaasi qaadan doonaan Ismaaciil Macalin Horeeye oo jooga Muqdisho waxa uu leeyahay qofkii aan haysan jeermis dile uu gacmaha ku nadiifiyo maxaa la gudboon waa sida horta jeermis dilaha waa muhiim wax kasta ha noqdo muxuu ahayto wax un jeermiskan waa nugul yahay sidiisa waa ka nugul yahay maxaa jeermisyada kale marka waxaa loo baahan yahay haddii wax kale u waayo in yani ama saabuunta caadiga ahayd ama oomo ama muxuu ahayto dambas ama biyo dareerayo wax un uu ku dhaqo ku dilo maxaa yeelay waa muhiim in uu yani gacmihii mayro oo weliba wax un yani uu ku sameeyo gaar ahaan weliba waxyaabahan ama saabuuntan oomada oo weliba joogto ah ama saabuunta caadiga ahayd ama alcoholkii ama dee waxaas dhan waa xataa deebkii maaragtay maxaa dambaskii inuu wax ku dhaqdaa loo baahan yahay oo muxuu ahayd un jeermi dila ah waa gartay dhegaystahan lagu magacaabo Cawaale Cabdi Seed waxa uu joogaa Garowe waxa uu leeyahay
cudurkan covid-19 haddii uu qofka ka bogsoodo muddo intee leeg ayuu weli ku gudbin karaa xanuunkani oo ay tahay inaanan lala macaamilin qofkaasi wallaahi horta cudurka waa cudur cusub weli baritaankiisa socda laakiin culummada waxay isku wada waafaqsan yihiin culummada caafimaadka bacdamaa 3 qaybood loo qaybiyo oo la yidhaahda qaybta 80% waa qaybta mildka la yidhaahdo oo aad calaamooyinka ay yar yihiin oo calaamooyinka aan sheegi jirno ah quficii iyo muxuu ahayto qandhadii iyo nafqabadkii iyo ay yar yihiin waxa weeye 80% marka waxaa la yidhaahdaa ilaa 2 usbuuc يعني وكسو بحي كرايا كرنتينكا او سو غلي كرا waa la yiraahdaa waa nooca mild ka la yiraahdo midda kale halista xoogaa qofka markuu severe yahay dadka qaba oo dadka waayeelka dadka waaweyn ee weheliyaan cudurrada faafa ayaa badanaa waxay u gudbaan 15% waxay u gudbaan qaybta kale la yiraahdo severe-ka taas marka iyo ama criticalka oo kasii darno 5% ah oo qaybta halista oo u bahnaanayo waxyaabaha mechanical ventilation-ka la yiraahdo iyo ICU-ga marka kuwaas waxaa la yiraahdaa qofkii ka soo baxo waxaa la yiraahdaa 3 ilaa 6 usbuuc qaar waxay yiraahdaan ilaa 8 usbuuc way yiraahdaan marka laakiin badanaa waxaa loo wada badan yahay ilaa 6 usbuuc loo badan yahay wixii ka dambeeyay inuu maaragtay caadi yahay Dr. Cusman ay sheegaan walow weli baxsigaas iyo muxuu ahayd daraasadaas ee weli ay socdaan Dr. Cusman Dufle waad mahadsan tahay dhegeystahan loo yiraahdo Siciid oo jooga Boosaaso wuxuu leeyahay cudurkan ma lagula tacaali karaa dawo dhaqameedyada dadka Soomaalida ay isticmaalaan sida malabka iyo waxyaabaha kale ee Soomaalida ay isticmaasho taas waxaan rabi lahaa inaan bulshadeena ugu sheego cudurkan waa virus weeye waa virus weliba oo aad halis u ah oo fidi og ilaa haddana caalamka weli laguma guulaysan in la helo dadaal badanaa lagu jiraa in la helo daawo wax ka tarta marka daawo dhaqmeedka sida malabka iyo ama waxyaabo kale qaar waxaan aragnay sibir qaar waxaan aragnay liin sheegaya qaar waxaan aragnay sanjabiil iyo waxyaabo kale waxaasoo dhan wax ka jiraan ma jiraan waxa weeye kaliya waxa waaye wacyigelintii ka hortagii nadaafadii iska ilaalintii qofkii ayaa muhiim ah markaan oo kale laakiin daawo gaara ilaa hadda lasoo sheegay ma jirto laakiin dadaalkeeda caalamka dhan waa ku jiraan دكتور عثمان دفلة oo kamid ah dhakhaatiirta ugu waaweyn Soomaalida qadka ayuu magaalada Muqdisho uga jiray aad ayuuna u mahadsan yahay dhageystayaasha iyaga ra'yigooda soo dhiibanaya ama su'aalaha weydiinayayna dabcan waynu u mahad celinaynaa wararka cudurkaasi haddii aan halkaa kasii wadno tan iyo markii uu dunida cudurkan ku faafay coronavirus waxaa sii badanayay wararka been abuurka ee ku gaadaaman xanuunkan waxaana meelaha ugu badan ahaa baraha bulshada iyadoo laga been abuurayay astaamaha xanuunkan wararka la xiriira cidda qabta iyo mararka qaar iyadoo la arkayay dawooyin la sheegay in cudurkan lagu daweeyo haddaba xiliyadan oo kale maxaa la gudboon warbaahinta sideese la isaga ilaalin karaa wararka been abuurka ah su-aashaas iyo kuwo kale ayaanu weydiinay khabiir saxaafadeed ahna tafaftiriya hore ee laantan af Soomaaliga ee BBC-da Yuusuf Garaad Cumar wuxuu u waramay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil xilligan oo kale waa xilliyada warbaahintu ay ugu mas'uuliyad iyo miisaan culus tahay mar walba warbaahintu waa muhiim waxaase jira xilliyada ay ugu sii daran tahay waa xilliyadan oo kale xilliyada masiibooyinka dabiiciga ah oo hadda xilliga lagu jira ah xilliga colaadaha xilliga doorashada wararku mar hadday si khalad u baxaan dhibaato waxay keeni karaan aad iyo aad u culus isla markaasna wararka la qaadanaya ay noqdaan haddii ay war dawladeed tahayna il rasmi ah oo loogu talagalay iyadu inay warka baahiso laga soo qaatay haddii ay tahay aqoon iyo wacyigelinna laga soo qaatay dhakhaatiir iyo aqoon-yahano kale oo khibrad u leh mawduucaas laakiin aan hadallo meelaha la sidsido oo kuyeen ama kuteen in aan laga dhigan war aan laga dhigan warbaahinta Soomaalidu badanaa waa warbaahin ku dhisan faa'iido doon oo ganacsi kuwa badan laga raadinayo warbaahinta noocaas mararka qaar waxay tabiyaan xog ay lacag ka sameeyeen oo tusaale ahaan qof ii dhex samaynayo sheegaya inuu xanuunkii coronavirus oo kale uu dawadiisii hayo ama uu isagu daweeyey xogta noocaas oo aan caddayn ku filanna loo hayn marka warbaahintu la kulanto maxaa cabira oo ay warkaas saari kartaa saxnimadiisa iyo xaqiiqadiisa horta warbaahintu awood ay ku ogaato cidda daawo haysa iyo cidda kale ma jirto laakiin waxa weeye waxaa common sense ama logic waxa la yiraahdo ayaa la isticmaalaya maskaxda la adeegsanaya cudurka caalamka dalalkii ugu dhaqaalaha badnaa ugu aqoonta badnaa aan maqlina ka dhigaya
in maaragtay qof iska fadhiyo tuulo yaro halkaasa uu yidhaahdo aniga daweyn kara ama uu yidhaahdo qaabkaasuu yahay oo asagu ka warbixiyo waxa weeye waa wax aan maanku qaadanayn marka taxadarka ay samaynayaan oo wariyaasha looga baahan yahay ay ka mid tahay inaan dadka la marin habaabin inaan la wareerin midda kale waxa weeye de mas-uuliyad ayaa ka saaran ama dowladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqoto ama ciddi kale mas-uul ah meeshii dadkaasi ka hadlayaan joogta qofka dadka marin habaabiya waxaa loo baahan yahay in dadkaas lagana aamusiyo oo la qabto qofka noocaa samaynaya saxaafadda waxaa samaynaysana lagala xisaabtamo saxaafadduna inay ka taxadarto ayay u baahan tahay waxa noocaan oo kale ah yuusuf xiliyadan adagoo kale dowladuhu waxay isku dayaan inay xogaha qaar qariyaan oo aysan warbaahinta ogeysiin xogtaas iyagoo warbaahintu raadinaya mararka qaar waxay la gashaa inay sheegaan war aysan hubinoo male ku dhisan halkaa miyaan dowladdu iyo cidaha maamulka hayaanay eedaha ku yeelan karin oo aanay warbaahintii ka hor istaagin warkii saxdahaa si ayagu usii gaadhsiiyaan warbaahinta iyo dowladda ama mas-uuliyiinta markaa meesha la joogo madaxda ka ah waa ay isu baahan yihiin midda ku saabsan warka qarintiisa iyo arrimahaas dowladda iyo mas-uuliyiinta kale ee gobollada iyo meelo kaleba jooga mas-uuliyad ayaa ka saaran inay shacabka u warramaan waxa jira inay u sheegaan tirada dadka inay u sheegaan xanuunku gaaray tirada dadka u dhimatay inay sheegaan tirada badbaaday inay sheegaan wixii aanay hayn oysan awoodin inay sheegaan oo dadka kula tageen gurigooda inay joogaan runta ayaa lagu badbaadi karaa runta in laysu sheego dadkana loogu warramo kaas waxa uu ahaa yuusuf garaad cumar oo u warramayey wariye cabdiraxmaan cali dhimbil wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa sheegaya inuu hakad ku yimid socodka gaadiidka kadib markii daadad ay ku soo rogmadeen halkaasi kuwaasi oo jaray buundo ku dhow magaaladaasi gaadiidka labada dhinac isaga imaanaya ayaa ku go'doonsan halkaasi waxaana haatan soconaya dadaallo lagu wado maamulka degmada kaasi oo lagu doonayo in jidkaasi lagu furo arrimahaasi ayaanu ka waraysanay cabdisalaan bashiir cabdisalaan oo ah duqa magaalada boosaaso axmed cawil ayuuna u warramay sida wada ogsoonnahay xilligan waa xilli roobaadkii run ahaantii buundo ku taalla magaalada boosaaso marka laga soo baxayo ama ex control ayaa xalay waxaa soo maray biyo badan buundadaas baa kala go'day taasaa waxay sababtay in socodkii gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka rakaabkaaba ay istaagaan marka wax dadaalo aad wadaan aad wadada uga leexinaysaan meesha ay ka go'day axmed sida wada ogsoonnahay buundooyinku inta badan muxuu ahaa buundooyinka intooda badan shaqooyin baa hadda ka socota ee dowladda puntland ee ka waday wasaaradda howlaha guud ee hogaaminaysay runaantii tanna waxay kusoo aadismatay maadaama roobka ay biyo badan ee soo mareen jileecna uu iska jiray buundadu sidiiba ku go'day saaka abaarihii 6dii subaxnimo dadaalkii aanu ka bilownay baa laga bilaabay baa ilaa iyo haatan weli ka socda runaantii waxa weeye waxaan loo sameynayaa waddo maraan gaadiidku ay isaga gudbaan si socodku soo istaagin iyadana waxay ku biiri doontaa dee buundooyinka la hagaajinayo hadda shaqadoodu ay bilaamatay muddo isbuuc ka hore ay ka bilaamatay laamiga weyn ee magaalada laakiin de guddoomiye awal waa la ogaa in buundadan aad u jirosan tahay halboolana waddadaas u tahay marka inta aysan go'in maxaa wax uga qaban weydeen runaantii buundooyinkii lasoo sahmiyey buundada kale kuma jirin waxaa keenaya dee maadaama waddaduna ee muddo badan ee dhisneed 30 sano wax dayactir rasmi aysan helinna waxyaalaha sababay waxa weye biyihii awoodda lahaa xoogga lahaa oo marayay baa sababay iyo baarigii iyo ciriirkii baa waxay sababay inay buundadu go'do haatana juhdi iyo dadaal lama yaraysan waxaan aad iyo aad u bogaadinaya halka uga ammaanaya isha muxuu ahaa ciidanka booliiska puntland oo hogaaminaya taliyaha qaybta oo runaantii ilaa xalay ilaa saaka waxa weeye meesha goobjoog ahaa shaqadana waday la-aantoodna aysan wax badan hadda qabsoomay aysan qabsoomeyn gaadiidka kala duwana hadda ku sugan iyo dadweynaha meesha ku sugan maxay u badan yihiin runaantii gaadiidkii yaryaraa oo idil intooda badan way gudbeen oo waddo kale oo waxa weeye meesha baa loo sameeyey haatan waxa ugu badan oo taagan waa gaadiidka xamuulka ahaa iyagana waxaan rajaynaynaa ilaa iyo inta gelinka horaa inay ku gudbi doonaan haddii allah uu dalay khataro kale oo roobku keeneen ilama intuu hadda uu da-ayay ma jiraan runaantii hadda roob da-ay oo aaga ku da-ay oo xoog leh ma uusan jirin laakiin waxaa jiray biyo xoog leh oo toga baalane soo maray biyahaas baa waxay sababeen in buundooyinka qaarna ee go-aan qaarna waxa weeye haatan shaki badan uu ka jiro marka insha allahu tacaala kuwa kaleetana waxaan dadaalaynaa inaanu tarfiic ama kormeer ku samayno oo hubino waxaa kaloo kula dardaarmaynaa dhammaan dadka gaadiidka wada xilliyada roobabka ay jiraan inay si taxadar leh u socdaan mar walbana ay feegjignoodaan
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan bashiir cabdisalaan oo ah duqa magaalada boosaaso waxa uu waramayey wariye axmed cawil dhegeystayaal ayaa ra'yigooda qodobkaasi ka soo dhiibta waxaana ka mid ah jaamac axmed samakaab waxa uu jooga hargeysa waxa uu yidhi nimco waliba nusqaanteeda ayay leedahay roobabka godoomiyey boosaaso waa nimcada eebe buundadaas xirantayna waa in shacabka iyo dowladda iskaashanaya ay wada dhistaan si buu yidhi meesha looga saaro baabuurta iyo dadweynaha wadadaasi ku xayiran idaacaddii dunida iyo maanta ay si wada jir u soo saareen xasan sheekh cumar iyo samiire cabdulaahi jaamac waa naga intaa anigoo xasan cali geela ayaa ila socodsiinayay tan iyo berri aroortii waa bbc oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo